السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waan kusoo laabtay haddana videoga insha Allah waxaan rabaa inaan ka jawaabo su'aal commentiga la igu weydiiyay hadda ka hor oo videoga hore aan duubaan igu weydiiyay commentiga su'aasha waxay ka hadlaysaa wuxuu leeyahay walaal wuxuu weydiinayaa difference u dhaxeeyo computer science maxaa lahaa software engineering software development maxaa u dhaxeeyo waxyaalahan oo dhan ma ii sharaxi kartaa marka waxaan rabaa inaan kala qeexo oon insha Allah idin sheego waxay ku kala duwan yihiin mid kasto in kasta oo intooda badan loo isticmaalo interchangeable wax la dhaho ama isku si loo isticmaali karo marka waxaan rabaa inaan ka hadlo qoraal yar intii ku qoran waxaan rabaa inaan ka hadlo computer science muxuu yahay computer science waa subject ama waa maado sida si general ama si kore usoo macnaha koobayso waxyaalaha ka kooban tahay technology-ga sida for example security-ga software engineering fundamentals waxa la dhaho computer vision machine learning database management waxyaalahaas oo dhan yaa soo hoos galo computer science marka computer science baranaysid marka waxaad baranaysaa badanaa waxaad baranaysaa theories waxay dhahaan ama waxaad baranaysaa waxyaalo la xiriiro hababkii wax u shaqeeyaan waxaa lagu sharaxayaa macnaha wax kasto sidee u shaqeeyaan sidee iskula shaqeeyaan software-rada machine learning-ka muxuu yahay waxyaalahaas laga hadlaa marka subject-ga waxay u fiican tahay qofka rabo inuu u gudbo mustaqbalka macnaha hadda waxyaalo badan waa ku samayn kartaa computer science-ka oo macnaha waxaa ku samayn kartaa software-rada dhisi kartaa waxaad dhisi kartaa waxyaalo badan technology la xiriiro computerada hagaajin kartaa qalabaadka networking-ka waxaas dhan waa samayn kartaa laakiin waxay ku fiican tahay maxaa yeelay waxyaalo badanaa baranaysaa hal wax ma baranaysid waxyaalo badanaa baranaysaa oo aad macnaha aad dhinaca rabtaad aadi kartaa markaas laakiin software engineering marka la dhaho waana ka hadli doonaa maxay kula duwan yihiin software engineering software development maxay kula duwan yihiin laakiin software engineering marka la dhaho in general software engineering-ka waxaa weeye wuxuu ka hadlayaa habkii software-ka loo sameyn lahaa habkii software-ka looga shaqaysiin lahaa habkii software-ka macnaha loo design gareyn lahaa ama loo naqshadeyn lahaa wuxuu ka hadlayaa habkii software-ka debugging wax la dhaho lagu sameyn lahaa oo debugging waxaa weeye macnaha in software-kii qaladaadkii ku jiray waxaas laga bixiyo ama macnaha la fiiriyo software-ka si u shaqeynayo kabacdina la test gareeyo testing-ka ama in software-kii la mariyo maxaa la jiray waxyaalo badan oo ku shaqeyn lahaa si loo arko wax inay ka imaadeen ama in habkii u shaqeyn lahaa loogu talagalay inuu u shaqeeyo waxyaalahaas la sharaxaya macnaha markay noqoto software engineering-ka ma ahan subjectyo waaweyn sida machine learning AI waxyaalahaas kuma jiraan qasab AI waa loo baahan yahay software engineer waa loo baahan yahay laakiin software engineer caadi marka iskuul ka baranaysid waxaad baranaysaa waxyaalo la xiriiro software-ka sida waxa loogu sameyn lahaa si loo dhisi lahaa si loo hagaajin lahaa si loo naqshadeyn lahaa marka taasaa niyadda ku haynaysaa badanaana wax oo hardware ama qalab maxaa la dhihi jiray ama qalab physical gacanta ku qaban kartid badanaa looma isticmaalo software engineering waxaa loo isticmaalaa computer-ka galaysaa waxaad ka shaqaysiinaysaa software waxaad isticmaalaysaa software kala duwan si aad u hagaajiso u dhisto software marka saasaa badanaa loo isticmaalaa markay noqoto software engineering marka software engineering iyo maxay ku kala duwan yihiin iyo software development marka software engineering saan ka hadalnay waxaa weeye waa dhisitaanka software-rada software development-igana waa sidoo kale waa dhisitaanka software-rada laakiin wax yaray ku kala duwan yihiin labadooda waxay ku xiran tahay qofka shaqadu qabanaya ku xiran tahay software engineering wuxuu sameeyaa qofka badanaa wuxuu isticmaalaa xisaabaadka iyo scientific methods waxay dhahaan ama hababka science-ka wax u sameeyo si ay usoo saaraan software marka software engineering waxaa weeye waa qof bartay xisaabaad iyo habab wax loo soo saaro methods si uu software u sameeyo software developer-na waxaa waaye qof software qaato software la sameeyuu qaadanayaa wuxuu sameynayaa uu horumarinayaa ama asaga dhisanayo software-ka kadibna uu horumarinaya marka software development-ga waa one step forward waa macnaha wuxuu sameynaya qofkan uu dhisayaa
kabacdi software developerka wuxuu sameynayaa dadkii u geynaya softwareki uu ku fiirinaya dadka inay isticmaalaan in kale habkii u shaqeynayay waxyaalahaas uu ka shaqeynaya marka asaga waxaa waaye more maxaa la dhihi jiray more hands on ama waxaa weeye waa qof gacanta kula jiro softwarekii oo wixii soo bixinayo debuggingkii wixii gelinayo ka shaqeynayo waa more shaqo waaye software engineerna waxaa weeye qof badanaa ka fikiraya softwareka si u ekaan lahaa naqshadeynayo haddii si micna example ahaan haddaan siiyo software engineer waxaa weeye waa sida architectka camal qofka architect ah oo guryaha dhiso oo uu naqshadeynayo guryihii uu hagaajinaya uu isku dubridaya inkastoo exact same ahayn laakiin example ugu dhow oon ku bixin karo waa taas inuu yahay software engineer qof architect ah oo design gareeyo softwareka u shaqeyn lahaa wixii loo isticmaali lahaa software developerna waxaa waa contractorka qofka guriga actually dhisayo oo guriga actually ka shaqaysiinayo hubinayo inuu shaqeynayo wixii oo dhan asaga faraha la galayo marka laakiin inta badan dadka interchangeable waxa ay u isticmaalaan oo macnaha isku sii u isticmaalaan software engineer software developer macnaha aad uma kala duuno laakiin software engineer wax yar ka sareyso software developer wax yar laakiin labaduba software wax ku qabtaan ama softwareda ka shaqaysiiyaan marka taas waa saas ku kala duwan yihiin software computer science-na waa ka sareeya labadoodaba oo macnaha asagii soo hoos galaan dadka qaarkood ahaan laakiin at the same time computer science-ka waxyaalo badan aa baranaysa oo software engineering bas aanan ahayn waxaa kaloo i weydiiyey yarka programming waxaa weeye waa the act of actually coding the computer the actual act of writing the code waxaa weeye programming waxaa weeye waa wixii aad qoraysay codeka aad qoraysay yaa programming la dhahaa marka haddii aad programmer aad tahay waxaa samaysaa computerka waxaa siisaa instructions ama waxaa siisaa maxaa la dhihi jiray wixii u sameyn lahaa step by step marka programmer aad tahay marka software engineer waa software developer labaduba waa programmers waa labaduba marka programmerka waxay soo hoos gashaa software engineer software developer saasay kula duwan yihiin sorry waa ka xumaa haddii confuse waxyaalo ay ka imaado halkan meel kastoo aad fiiriso way adag tahay in la qeexo mid kasta 100% maxaa yeelay waxay ku xiran tahay shaqadu qofka qabanayo iyo ku xiran tahay iyo iskuulka aadaysid iyo iskuulka sidoo wax u baraayo iyo iskuulka curriculumkiisa waxaas ku xiran tahay marka haddii aad ku wareertay don't feel bad macnaha ha u maleynin in macnaha dad kala fahmin adi fahmin dadka intooda badan ma fahmin laakiin wax ugu weyn u baahan inaad fahanto waxa weeye kulligood waa isku yara mid muhiimadda waxa weeye computer science-ka waa subject koro weeye oo soo hoosgalayaan waxyaalo badan oo la xiriirto macnaha technology la xiriiro software engineering software developer waa isku midkii shaqadoodu inay ku kala duwan yihiin badanaa programmingna waxa weeye qofkii code qorayay oo wixii program galinaya marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa waa mahadsantihiin dhammaantiin insha allah videoyaal kale waan soo gelin doonaa qeyna in rajeynayaa su-aal haddaa qabtaan hoos click see insha allah qofkii rabo in uu ila soo xiriiro facebookgayga hoos gelinaya uu ila soo xiriiri karaa insha allah groupka facebooka oo aan soo gelino hadda waxa ma soo geliyo recently waxa ma soo gelinin insha allah aan soo gelin doono soo gala facebook group oo sahal course laha qeyna in rajeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh